masaajidda muslimiinta ay ku nool yihiin waddanka Faransiiska ayaa lagu soo waramayaa in masaajidda badan oo ka mid ah hortooda lagu daadiyay ama la dhigay madaxyada doonfaarada. magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska ayaa masaajidada ugu badan ee ku yaala waxaa la hordhigay madaxyo laga soo jaray doonfaarada, taa oo ay walaac iyo cambaareyn xoogan ay ka bixiyeen muslimiinta ku nool waddankaasi Faransiiska. taliyaha ciidamada booliska magaalada Paris ee caasimadda waddankaasi Faransiiska Laurent Nunez ayaa ku warramaya in ay tahay wax aan la qaadan karin oo ay sameynayaan wax walba oo awoodooda ah sidii loo soo qaban lahaa dambiilayaasha falkan foosha xun geystay. dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha waddanka Faransiiska Bruno ayaa isaguna dhaleeceeyay waxa uuna ku tilmaamay wax aanan gebi ahaanba la qaadan karin. waxa uuna intaa ku daray wasiirka arrimaha gudaha waddanka Faransiiska in ay doonayaan haddii ay yihiin Faransiiska in ay si nabad ah oo walaalnimo ah ay kula noolaadaan muslimiinta ku nool waddanka Faransiiska oo ay ku dhaqmaan una cibaadaystaan si walba oo ay doonayaan. waxa uuna cambaareeyay falkan oo uu sheegay in dowladda Faransiiska ay tallaabooyin degdeg ah ka qaadi doonto oo wax looga qabanayo. Faransiiska ayaa ah dalka ugu badan oo ay ku nool yihiin muslimiinta qaaradda Yurub, waxaana sidoo kale dalkaasi ku nool yuhuudda ugu badan marka laga soo tago Israa'iil iyo Mareykanka. tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda marinka Gaza ee Oktoobar 7, 2023 ayaa lagu soo waramayaa in qaar ka mid ah wadamada Yurub ay ka bilowdeen nacaybka xoogan iyo sidoo kale ficiltanka ka dhexeeya muslimiinta iyo yuhuudda ku nool qaaradda Yurub, sida ay sheegtay wakaaladda xuquuqda asaasiga ah ee midowga Yurub. arrintan ayay guud ahaan muslimiinta ku nool Yurub iyo Faransiiska waxa ay ku cambaareeyeen luuqadda teeda ugu adag, waxa ayna ka rajaynayaan dowladda Faransiiska in ay tallaabooyin degdeg ah oo wax looga qabanayo ay qaado. halka ay wararka kuwooda ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdulaahi Shiine.